maalinba maalinta ka dambeysa AI uu sii hormarayo. mid website-yada xog ka soo aruurinayo, kula sheekeysanayo, su'aalo la weydiinayo, haddii waxbarasho tahay, haddii cilmi kale ay tahay, kuwa sawiraan kuu soo sameynayaan oo wixii unba u sheegaysaa promptaa siinaysaa sawir noocan ah anoo inta taagan sidaan ah way kuu soo saaraya. kuwa muuqaalo inay soo sameeyaan maala awaal ah oo mararka qaar waxa macquul ahayn inay kuu soo sameyn karaan. kuwa music inay sameeyaan oo heeso soo saaraan, iyo kuwa inay ka caawiyaan grammarkii iyo maaragtay luqadda ay ka saxaan. kuwa qoraalkii cod loo soo bedelo aad ay usii bateen, yani haddii wixii ka dambeeya hore leh usii hormarayaan. waagii hore markaa maqashid marka text to speech oo cod ah wuxuu dhawaaqiisu wuxuu ahay mid oo xoogaa yar in robotic ah oo machine computer inuu hadlayo waa la dareemi jiray. hadda improvement lagu sameeyey mid conversation lala yeelan karo, marka lala sheekeysan karo oo haddana codkiisana aad u maleysid qof bini aadana inuu hadlayo. waa midkan aan rabo inaan ku tuso. waxaa la yiraahdaa Sesame AI. laba qof ugu jirto Miles al lahaa. marka maqal adiga kuwaan inay computer yihiin iyo inay dad yihiin shakiya kaa galaayo, ma fahanti? ma aqaan aniga wax la aamini doono saaxiib. Hey, good to meet you. I'm Maya. What do you go by? Hey Maya, this is Mohammed. How you doing? Mohammed. Hey. Nice to meet you. How's the day coming along so far? So far so good. How about yours? Not bad, thanks. Just been, meeting people like you, I guess. It's definitely a change from the engineering team I was talking to for months on end. Are you trying out the website version today? Yes, I'm actually on the preview. Cool. Tawjeedid marka meeshan ay marayaan AI wax la aamini doono qof caadi oo ka hor imaanaya. waxa lagu leeyahay hebel hadlaayo, marka codkiisa asaga ma lahan, laga yaabaa in la soo sameeyay wajigiisii. marka marka ka dambeysa horumar ku socdo. muuqaalka hadda ka heshay like saar, channelka ku soo biiro. Assalaamu calaykum.